casharkan waa casharkii saddexaad waxaa idiin soo diyaariyey Somtronics. Waxaa ku saabsan yahay resistors ama waxa loo yaqaan caabiyaha ayuu ku saabsan yahay. Su-aasha marka waxay tahay caabiyaha muxuu yahay ama resistorka muxuu yahay? Resistorka is a passive electrical component with the primary function is to limit the flow of electric current. Caabiyaha waa qalab shaqadiisu ay tahay in uu celiyo ama ka hortago korontada qulqulkeeda. Picture-ka wuxuu na tusayaa resistorka shaqadiisa. The resistor restricts the flow of electricity. Resistorka wuxuu ka hortagaa korontada qulqulkeeda ama dhaqdhaqaaqeeda. Calaamadda lagu garto wuxuu leeyahay laba lugood, korkiisana wuxuu leeyahay color kala duwan. Calaamadda lagu garto waa zigzag ayay tahay. Dadka qaarkoodna waxay isticmaalaan boxkaas oo kale rectangle-ka ayay isticmaalaan. Waxaa lagu cabiraa wax loo yaqaan ohms ayaa lagu cabiraa oo loogu magac daray ninka la yiraahdo George Ohm oo u dhashay waddanka German oo mathematician ama physicist-ka bartay ayaa wuxuu ahaa ninkii actually soo saaray wax loo yaqaan Ohm's law oo casharadii hore aan ku soo sheegay. Ohm's law wuxuu leeyahay voltage-ku waxay la mid tahay voltage-ka sida hore soo sheegay waa pressure-ka riixo korontada inay dhaqaaqdo waxay la mid tahay I oo korontadii ah R oo resistorkii oo la isku dhuftay. I oo korontadii ah waxay la mid tahay voltage oo loo qaybiyo resistance. Resistance-kana waxaa lagu helaa voltage-kii oo loo qaybiyo korontada. Sida tusaalaha ayuu tusaya. Tusaalahan wuxuu na tusayaa cartoon hadda korna aan casharkii hore aan ku soo sheegay. Wuxuu leeyahay masala markaad soo qaadato fiilo ama tuubo aad soo qaadato tusaale ahaan korontadii waxay tiraagaraynaysaa inay marto fiilada gudaheeda ama tuubadii marto. Voltage-ki wuxuu sameynayaa waa riixaya pressure ayuu saaraa si ay u socoto. Resistor-kii ama ohms-kana wuxuu tiraagaraynaya inuu ka hortago korontadii dhaqdhaqaaqeedii. Marka voltage-ka wuxuu riixaa korontada waa pressure-kii riixaysay. Ohms-kana ama resistance-kana wuxuu ka hortagaa korontada dhaqdhaqaaqeedii. Voltage sida hadalka u jeedtaan waxay la mid tahay ayada oo riixayso electrons-ka. Resistor-kana waa gacanta oo ka soo horjeedo inay korontadii dhaqaaqdo. Kana waa fiiladii. Marka electrons-ka waxay tiraagaraynayaan fiiladii inay dhex maraan ama copper ah ama maar ah. Resistor-kii uu ka hortagayaa in electrons-ka ay socdaan. Sida la socotaana electrons-ku waa the flow of current. Calaamadaha lagu garto resistors-ka waxaa ka mid ah zigzag-gan kan waxaa loo yaqaanaa fixed resistor caabiyaha aan isbedelin. Waxaa jiro caabiyo kale oo dhexda ku wato falaar kaasna waxaa loo yaqaanaa two terminal variable resistor caabiyaha isbedelo oo labada lugood leh. waxaa kaloo jiro saddex lugood oo actually leeyahay. waxaa kaloo jiro three terminal isagana mid kale oo saddex lugooda wato kaas oo isagana isbedelo oo loogu talagalay inuu isbedelo. waxaan ku magacaabi karnaa saddex lugaale. Resistorka noocyada u kala baxo waxaa ka mid ah kuwa ka samaysan carbon oo ah chemical ay ka samaysan yihiin. waxaa ka jiro mid kale oo la yiraahdo metal film ka samaysan oo isagana very high accurate ah oo macnaha loogu talagalay in loo isticmaalo markii aad rabto resistorkaaga inuusan aad isu bedbedelin oo qiimihiisa u noqdo qiimo cadadan oo isbedelayn. kana wuxuu ka samaysan yahay biro ayuu ka samaysan yahay gudihiisa. waxaa kaloo jiro mid kale ka samaysan wax la yiraahdo metal oxide film oo loogu talagalay low noise and a good thermal property loogu talagalay noise-ka ama shanqarta ka soo socoto ama uu leeyahay circuit-ka inuu yareeyo iyo also kuleelka inuu isagana uu markuu kulaado uusan aad isu bedelin. isagana wuxuu ka samaysan yahay metal oxide. waxaa loo isticmaalaa circuits-ka oo radio frequency-ga ama raadiyaasha ayaa loo isticmaalaa. waxaa kaloo jiro mid kale la yiraahdo resistor network kaas oo leh lugo badan
ayuu leeyahay oo yacni package oo looga badan ayuu leeyahay marka meeshii lugtii kasto masalan lugtan koowaad iyo lugtan labaad waa hal resistor lugta labaad iyo lugta afraad waa hal resistor saas ayuu u shaqeeya waxaa loogu talagalay markii spaceka uusan circuitka haysan in la geliyo ayaa loogu talagalay waxaa kaloo jiro mid la yiraahdo wire one resistor kaas oo ah high power loogu talagalay power supply-ga ama circuitka u baahan quwadda powerkeeda ay weyn tahay caabiyaha isbedelo haddaan soo qaadano calaamadiisa waxaa waaye 3 lugood ayuu wataa terminal 1 2 and 3 waa lugihii wuxuuna u egyahay sida waa raadiyaha misalan raadiyaasha aan isticmaalno volume control kan codka dheereeyo waxa uu ka samaysan yahay variable resistor oo 3 lugood la ayuu ka samaysan yahay noocyadan oo kalena waa jiraan oo ayagana surface-ka loogu talagalay circuit-ka oo ayagana 3 lugood wato waa resistors la dhaho variable resistor waxaa jiro kuwa la yiraahdo surface mount oo loogu talagalay circuit-ka misalan telefoonada kale oo aad maaragtay circuit-keedu ay yar tahay ama space-ka uu yar yahay oo loogu talagalay inuu noqdo size-kiisa uu yar yahay oo isagana nooc oo resistor waaye noocaas oo kale ah sida ujeedaan markii suulka qofka la fiiriyo sida uu yar yahay waa ujeedaan waxaa la yiraahdaa surface mount waxaa loogu talagalay telefoonada iyo waxyaalahaas oo kale in loo isticmaalo resistorku wuxuu leeyahay kalaro kala duwan ayuu leeyahay oo lagu cabirkiisa aad ku garan karto waxay u kala baxaan 3 nooc ayay u kala baxaan nooca koowaad waxaa la yiraahdaa 4 band wuxuu leeyahay 4 kalar oo kala duwan 5 band midkaan wuxuu leeyahay 5 kalar oo kala duwan 1 2 3 4 5 iyo wuxuu leeyahay 6 ayuu leeyahay waxaa aad loo isticmaalaa midka 4 band leh ama 4 kalar oo kala duwan leh kalarka ugu horeeyo waxaa loo yaqaanaa first digit ama numberkii ugu horeeya wuxuu leeyahay kalaro kala duwan oo ka bilowda 0 ilaa iyo 9 gaaraya 0 waa black number 2 waa brown red saas ayuu u socdaa digitka labaad ama kalarka labaad waxaa loo yaqaanaa digitkii labaad ama numberkii labaad numberkii labaadna waxa uu kuu sheegayaa sida ujeedan 0 ilaa wuxuu gaarayaa 9 ayuu gaarayaa waxaa soo haray digitkii saddexaad ayaa soo haray kan saddexaad waxaa loo yaqaanaa multiplier macnaha waxay tahay waa numberkii aad ku dhufan lahayd waa sharci doona casharka ku xigo meesha u dambeysa ama bandka u dambeeya ama kalarka u dambeeyo waxaa loo yaqaanaa tolerance waxaa waaye awoodda uu adkeysan karo isbedelka marka uu isbedelayo resistorka macnaha qiimaha isbedeli karo marna wuxuu aadi karaa kor marna wuxuu aadi karaa hoos ayadoo ay ku xiran tahay maadaama waxan uu chemical uu ka samaysan yahay waxaa laga yaabaa resistorka qiimihiisa inuu isbedelo ama kor aado ama hoos aado marka kalarka wuxuu kuu sheegayaa inta uu isbedeli karo masalanba markuu kalarkaas aad akhriso uu yahay silver uu yahay wuxuu ku leeyahay waa 10% ayuu isbedeli karaa macnaha 10% ayuu qiimuhu isbedeli karaa gold wuxuu isbedeli karaa 5 brown hadduu yahay wuxuu isbedeli karaa 1% red hadduu yahay 2% sidaa ayay u socdaa masalan waxaan soo qaadanay resistorka ayaan soo qaadanay waxaan rabnaa inaan ogaano kalarkiisa inaan ogaano kalarka ugu horeeya wuxuu noqday brown kalarka ku xigo wuxuu noqday black kalarka ku xigo oo saddexaad wuxuu noqday red marka wuxuu noqonayaa 10 kalarka saddexaad waxaa loo yaqaanaa multiplier waa numberkii aad ku dhufan lahayd maadaama red uu yahay 2 uu yahay waa isku dhufanaysaa wuxuu noqonayaa 10 waxaa kaloo jirto kalarkii afraad oo ahaa goldna wuxuu noo sheegayaa 5% ama kor u kici karaa ama hoos u kici karaa qiimihiisa marka haddaan rabno inaan dhigno waxay noqonaysaa 10 multiplierka 2 uu yahay maadaama 2 ay tahay 100 ay tahay 2 ay ka taagan tahay 100 ay ka taagan tahay haddaa fiiriso halkaa wuxuu noqonayaa 2 waxay ka taagan tahay 20 marka wuxuu noqonayaa 100 waa isku dhufanaysaa wuxuu ku siinayaa 1000 ohm ayuu ku siinayaa marka wuxuu isbedelayaa 5% markaan calculate gareyno 5 loo qeybiyo 100 wuxuuna siinayaa 0.5 markaan ku dhufano 1000 wuxuu noqdaa 50 marka resistorka wuxuu kor aadi karaa 50 ohm
hoosna wuxuu aadi karaa 50 ohm markaan ka jarno markuu hoos aado kunka aan 50 ka jarno wuxuu na siinayaa 950 markii aan ku darnan wuxuu na siinayaa 1050 marka resistorka qiimihiisa wuxuu noqon karaa 950 ama 105 waxaan soo qaadanayaa resistor kale oo kalarkiisa uu yahay green blue iyo orange uu yahay tolerancyga ama kalarka afraadna wuxuu yahay gold waayo goldna waa 5% marka waxaan akhrinaynaa 5 6 multiplierka maadaama orange uu yahay orange wuxuu wataa 30 minus 1000 markaan isku dhufano waxa uu na siinayaa 56,000 ohms ayuu na siinayaa marka maadaama qiimihiisa uu isbedelayo boqolkiiba 5 korna aadi karo hoosna aadi karo waxaan sameynaynaa waa calculate garaynaynaa 5% markaan ku dhufano 5% 5600 wuxuu na siinayaa resistorka wuxuu kor aadi karaa qiimihiisi 2800 ama kor aadi karaa ama 2800 oo hoos aadi karaa markaan ka jarno wuxuu noqonayaa resistorka markuu hoos aado oo minus 5% hoos aado waxaan helaynaa 53,200 ohms ama 53.2k markuu kor aadana isku darno resistorka qiimihiisa aan ku darno 56,2800 aan ku darno qiimihiisa wuxuu kor u kici karaa 58,800 ohms or 58.8k ayuu aadi karaa